sida loogu dabargo-ay ninkii doonayo ma qalban waxaan idhi darmaanow hay dambeeye yaabkuye waa kuma dembiilaha anuu qaranka dumin laa daarigula kaa xidhay bal horta aniga warka kale ha ii jooge bal anigu qaran dumis baan nahay darmaan niyahow dameerkii maxaa meeshan adigana ku keenay ilan waa mushkilad annagu waa tan oo dee qarankii baan duminayno waa nagana ya oo meeshii de waa nala oo kiiskiina waaba nalagu haya annaga waaba nagu cad yahay oo magaciina waaba naloo bixiyey adiga maxaa meesha ku keenay ya bal ninkaa ii sheeg markaa dee wuxuu yidhi ma duugsana dirig himir markaa daaqad baanu ka wada hadlaynaa meesha dabaylna way dhacaysaa cabsiina way iska jirtaa oo askartii iyo wixii baa la iska ilaalinaya markaa dee qofku markuu ku dhaafo ayuu dee erey ku soo tuurayaa ereygaasaad markaa qabsanaysa markaa ninkii odayga ahaa wuxuu yidhi ma duugsana dirig himir yaa darmaanow dar baa inoo dhaxeeye kor u qaadinaahada maxaa tidhi darmaanow bal ku celi dabuubtii hadalkana ideeqsii baan wuxuu doodiyo codkaagaan ka aqaan duleedko dayrtii fogayd baa noogu kaa dambayso waxa tahay darwiishkii maansada dalayn jiray ilaa meeshanaan kaga tegayey isagu way gartay markiiba ilan qolada xabdi waxa mayli war miyaanad ninkii ahayn bi odayga ahaa anigu markaa dee qol baan ku jiraa isagu daaraddu meesha maraya codkaagaan garanaya wuxuu yidhi dood iyo codkaagaan ka aqaan duleedko dayrtii fogayd baa noogu kaa dambayso waxa tahay darwiishkii maansada dalayn jiray malaha jeelka daawiya dalxiis baad ka dhigatee yaa malaha jeelka daawiya dalxiis baad ka dhigatee aniga iyo dadkii kale docdaad nagu ogeyd baan darxumada la jignay maxaa meesha ku keenay bu yidhi daawo yani waxaabad ka samaysatay dalxiis iyo waabad la saaxiibtay buu yidhi dalaabaalkii waabad ka caasiqsan tahay wuxuu la yaabay ninkan baxaya soo noqday dalxiis baad malaa jeelka daawiya dalxiis baad ka dhigatee aniga iyo dadkii kale docdaad nagu ogeynoo darxumada la jiifnaa waxaa tahay darwiishkii maansada dalayn jiray hablihii dalkeenniyo dibaddaad ka timidoo deeqe iyo luulbaa kugu sii dambeeye yani waan maqli waayey mogti markaa wuxuu leeyahay maqliso ilaa xaggii dumarkii iyo hablihii isaga waxa u daran dee markaa mushkiladii ugu weyneyd isagoo ka hadlaya ee haysata markaa waxaad badii maqli leedahay buu wadaa mogti ya hablihii dalkeenniyo dibaddaad ka timidoo deeqe iyo luulbaa kugu sii dambeeyo maalintuu dameerciyo aniguba dubkaygiyo jiidhkay dubaaxsho xiisiyo dareen baan la danaaniyaayo doogtii jacaylkaan dib u soo xasuustaa wixii yeesha buu yidhi oo dee gidayle meeshan isna maba dameere ma arkaye meesha wuu ku cadilan yahay waar waan ogahay buu yidhi meesha in adigana maaragtay waxaad ii maqli leedahayba waa arrintaas didib iyo wax badan baan diri adag ku jiifo meesha duulal hoosiyo dulin baa igu cunayo waa dakaansanahayo dilal yaa i hayso dood sare ma karaye waxaan idhi ma durugsana ma duugsanadii buu ii sheegaya waxaan idhi ma durugsana duqda xamar ka talisiya dawladdiisa weeyaan wixii soo xidhay ila waa kii dirig himir waan garan waaya anugu mogti dabaysha ay dhaaftay mogti markaa wuxuu yidhi de waa kii waxa maama dee arrimahan oo dhan baa igu dhaco wuxuu war niyo magaalaad ka timid oo hablihii malaha tumashadii iyo wixii baad kusoo ilowday annagu sidii baanu iska naayay waxaan ku yidhi waxaan idhi ma durugsana ninkani xidhay nin fogba maaha duqda xamar ka talisiya dawladdiisa weeyaan duqa
duqda xamar ka talisiyo dawladdiisa weeyaan waariyaa dalxiisow dabayl baa dhacaysee hadalkaygii daaftii miyuu dacalka kaa maray maya maya darmaanow dabayshaaba hadalkii ka soo lalisay deyrkee deelkaa gartay ee dhaaf dawlad xumi ha talisoo bulsho ha u daraatoo aqallada ha dumisoo dumarkiiyo dhallaankiyo maatada ha dooxdoo ayaxoo dagaagiyo tirindiir sideedii inay dalaga beeraha degallada ka leeftoo dam ka siiso waan qaday misna talada kuma darin duunkana kumaan hayn dubaaqayga maan gelin intaan dunida noolaa isma odhan dad baa jira duunyada collaystee markaan eegay dulinkiiyo xoolaha la duutiyey xoolaha dayoobee xaqoodii la duutiyey dal bannacaye waa yaab afkaaga doogsan lagu qabay yaan hadalka kaa dilin darmaanow adaawadayba halkaagii ka socaan markaa dee sheekada anaa dhex galay duudkayga maaliyo dumaliyo alloogiyo yaa darmaanow xagaa yaa da'aysoo dirqaan kugu maqlaeyaa duuduuda iga daa da'diyo wowga kala saar dabnahaaga fududee bal ku celi duluucdii maxaa tidhi darmaanow duumada waxlaysiyo dabadhiigna way helay doogina way qabataa labadayda daaniyo ilaa duudka oogada waxbaa igu dul nooloo sidaa ii digaafoo duntaydii ma joogto duntaydii ma joogto shaashkii dushaydiyo diirkaygii waa go'ay kolkaan waayey dooggii iyo dahabadaydii darmaantaan lahaan jiray daaduunna way helay war wuxuu soo wataa uu leeyahay war balniyo waxaad ii maqli laadahay markii dambe kiiska isagaa iska qaato wuxuu yidhi war meeshan dhibaataa taallo dee anigaaba iska dayaysanoo sidii xaalkaygu markaa isagu dee wuxuu marayaa muddo dheer oo hadhow dee qaybaha dambe ayuu kolley ku sheegayaa muddadiisu markaa maraya uu xidhnaa iyo sida loo soo qabtay laakiin dee imika wuxuu sheegayaa war aniga dhibaata ay haysto hadalkaygaanad maqlayni bal niyo wuxuu yidhi daaduunna way helay adiguna mid iga daran ina daaliyaa tahay dufan baanad aragoo duxdii baad ka raagto dhegi kuma dalooshee waxaan idhi dalxiisow duudkayga maxa siiyo markaa duudkayga maaliyo baan anigu dumaliyo alloogiyo maaha sidaas war waxaan ku idhi duudkayga maxa siiyo dumar iyo agoon iyo danyar baan ku korin jiray diyaaraadka xiimiyo maraakiibta duurtiyo anaa gaadhi duuliyo doon uga dhignaayoo dusha waxaan ku qaadaa dahab iyo riyaal iyo dollar u ahaydoo sidii looga dilaye aabbahooda luundheer duhur loogu aaburay degtaan ugu shaqayn jiray markaa ninkani wuxuu inoo sheegay wuxuu ninkii yidhi anigu meeshan iyo horta waxaan ahaa nin danyarta iyo dadka masaakiina reer qoys iska masaakiina u shaqeeya waanan u xamaali jiray aabbahoodna waa la dilay jiray markaa anigu agoontaas iyo reerkaasaan ka shaqayn jiray waxaanan ahaa nin dee bulshada wax taraya oo dadka wax u geysanaya oo aan dee isagu waxbaba dhimayne wuxuun taraya markaa bal dee wuxuu uga jeedo aabbahooda luundheer duhur loogu aaburay degtaan ugu shaqayn jiray deeg harrow deeg ayaan idhi anugu u kaadi weye iyarsu meesha dee xabsi baa lagu jiraa daaqad baa la taagan yahay waxa weeye askari baa hadduu doono xagga dambe soo maraya shanqarh baad dhegaysanaysaa
markaa isagu dibaduu joogaaye anigaa meeshan ku kadeedanoo deeg harrow deeg gowskaaga daangiyo doog ha lagu casuumee halkaa igu yara daabaan kobtu deegad maahee kobtu deegad maahee waa degal siloono dabra weerar baa yaal shil maahee dulbaa'iga waxba ha u dardaar werin marka waxaan u sheegayaa war meeshu horta ma saaloona deegad kobtu deegad maaha meeshu guri fadhiyo sidan oo kaleo layskugu yimaado oo guriga ka dhexeeya maaragtay sitrumka ayaa deegad la yidhaha markaa kursigay war meeshii maahee meeshu waa meel cidhiyo horta dameerkaan isleeyahay ninkani waa dameeruna waa ka yar sheegsanaya anugu mogta waxaan horta bal xabsiga waa intaasuu iska xawayaan yahay u sheeg war meeshu maaha meel la iskaga sheegto lagu dalxiise ah waa horta waynu joognaa waa meeshii oo waa xabsi dee lamana ogolo dadku inay wada hadlaan weyn arag meelaha fogfog waxaa kaaga muuqdaa dulbaayiga meelaha fog waxa ka muuqda ayuu noqonayaa marka iska daa xaggaasoo dee dayrka kaa fog waxba ha eeginay meeshu dhirna way leedahay ya marka meelahan hoose inaga eeg baan leeyahay oo had iyo jeer digtoonow haddaan laylo had iyo jeer naafku dhulka kula jiraayo mar quraan dhulkii afka ka qaadin mo deeg harrow deeg gowskaaga daangiyo doog ha lagu casuumee halkaa iigu yara daa kobtu deegad maahee waa degal siloono dabra weerar baa yaal shil maahee dulbaa'iga waxba ha u dardaar warin daymadaada baashiyo dacallada ka soo laab dululaati kaymaha hullashada dar baa jira wax ku soo dugaalee meelaha dahsoon iyo laandayrta iga egbaan marka anugu ma arkaye war waxaan leeyahay war halkan daaqadda hoosteeda meelahan ii soo gelayaan way dhegaysanayaan bal meesha adugu iga ilaaliyo yaan maaragtay dhibaata inugu dhicinoo de bal meesha inaga fartamay duluucdii ku soo noqo yaa dilay wadaadkaa ma duulaan qabiil baa sababtiisa lagu daray waa dabeecaddeena ma isagaa dekana qabay maya dalxiisow nin dabaal ku jirayoo dunidaba ogaynoo doqoniima jeelka ah loo soo doonataa tahay ninaan waxbaba ogeyn oo odaygan aan idhi dee odayga isaga dekana qabay duulaan qabiil baa sababtiisa lagu daray waa dabeecaddeeni ayuu igu xanaaqay odaygii dee uu shaqayn jiray wuxuu yidhi maya dalxiisow nin dabaal ku jirayoo dunidaba ogaynoo doqoniimo jeelka ah la soo doonataa tahay doqoniimaaba lagugu soo xidhee nin wax kaloo ogba maba tihid bay wi ma duulaan qabiil baa dabnuhu yay ku kala tegin dartii haw cadaab mudan daahir wuu shahiidoo dabadheer abaartii 10kii la dilayee diinta aawadeediyo dar ilaahay dhimatee dabka lagu siduu galay wuxuu yidhi meeshaa sheekhaasi wuxuu ku dhintay 10kii wadaadee la toogtee ninkaa odaygii toogtay ayuu ka mid ahaa qoys ka mid ayuu ka mid ahaa halkaa ayaan u malaynayaa horta faatixada halkaa ha loogu mare noo wada horta faatixa halkaa ay noo joogta qaybtaasi maanta halkaa dalxiis iyo dhowr qaybood baan ka dhigi doonaa iminka darmaan iyo dalxiis waa kaasoo sheekadii dhex martay waa ka ninkaas yidhi horta kolka hore dameer baa xidhan baa layga rumaysan waaya way wada hadleenna dee kaba sii daran laakiin sida xaqiiqda waxa weeyaan sheekooyinka waxaa la yidhaha midna waxaa la yidhaahdaa waa dhab bay u dhaceen qaarna waxaa la yidhaahdaa qaarna waxa weeyaan noloshay dhab ahaan ugu jiraan kolkaa waxa weeyaan xayawaanku dee sideennu bay dareen leeyihin waa wixii dhibaato gaadha
waxa weeyaan iyaguna si ay u cabiraan bay garan lahayihiin laakiin sideenan bay u sheegi lahaayeen khadayda karayaan way duqanayaan waxaad ku maadsan tahay adigu dee kolley waxa weeyaan waa wax ku cusub suugaanta afkeena waxaa jira sheekooyinkaa hore inaad maqasheen mooyaane buug baa jira nin ingiriisa qore oo la yidhaha George Orwell oo la yidhaha beerta xayawaanka animal farm baa lagu yidhaha markaa wuxuu sheekooyinkii oo dhan ba wuxuu ka dhigay xayawaankii oo dawlad noqday oo iyagu is haysto oo dadkii meeshii ka qaatay oo kolkaasaa mashaakil dee kolkaasaa waa doofaarraa u sarreeya meesha oo waa kuwa afar lugood wixii afar lugoodla unbaa kolkaa wanaagsan bay odhanayaano kolkaasaa shimbirihii odhanayaan anaguna laba lugood keenanu leele kolkaasaa uu sheeko caynkaasoo dee dheer baa jirto xayawaan ku saabsan oo dee xayawaanka sidaasaa weligeedba looga hadlaya inagu midda kalena sheekooyinkeenan maaragtay libaaxa iyo dacawada iyo waxaasoo dhan waxa weeyaan iyaga qudhoodu tanun bay ku xujuujsan yihiin kolkaa waxaa lagu yidhaahaa afkal balaaqada yani de sugaanta lagu sameeyo marka si cilmiya loo dhuuxayo sugaanta waa tan le sugaantu waxa qurxiyayaasha waxaa la yidhahaa qurxiyayaasha afka sida waxaanaynu af soomaaliga markii aynu ugu baxinay ekeeyaha iyo shareerada iyo silan suganta iyo haddii bahay ku rooyahay kinaayada iyo waxaa ka mida qofaynta waxaa la yidhaaha qofayn baa ka mid ah personification baa ingiriiska lagu personification yani marka aad xayawaan ula hadasho ama uga hadliso sidii qof oo kale ama aad xabaal la hadasho ama dhagax ayaa la yidhaahaa qofayn marka wuxuu adeegsaday qalab ka mid ah qalabka la yidhaaho qurxiyayaasha afka oo qofayn kuwa waxyaabaha sugaanta qurxiyay ku jirtaa quruxda u yeela ayay ka mid tahay hada weli waxaan malayn inaan jeelkii iyo waxaan malayn cabdi kulley iyo kulleyba dee wuxuu inooga wada waaya aragsan yahaan malaynaya jeelka iyo dhaqankiisa iyo dadka biniaadamka dadka waxa weeyaan yani ma imika dushi maan inuu ka joogna waxa weeyaan askarigu sibuu noqdaa ya dadka ku jiraana sibay yihiin marka waxa weeyaan dunideenan maa duni kala weyn sababta dad halkaan loogu yaraan yaroo faahfaahina badda wallaahi baalkaasi waa iska xabsigu marka laga sheekeeyo horta wuxuu u baahan yahay kursi maaha waa in la fadhiyaa horta waa la iska fadhiyaa waayo imakadan lafteeda marka aad kursiga ku fadhidaad moodaysaa in lagu waraysa aad xiran tahayba markaas dad xabsiga ku raagto kursiba haddii sheeka aad ku gasho inaad xidhanto baad moodaysa oo imaka lagu weydiinayo wax waayo habeen oo dhan waa habeenkii oo dhanna waad leedahay talow maxaa ku iman markaa aroortii marka lagu kaxina kursi baa lagu fariisinayaaye iyo warqadahan cadcad ee meesha da imika inooga buuxin marka waxaasoo dhan cugdad baa laga qaadaa ma fiicna iyo aqalkan xidhanaya imika dee meel daaqad dibadiiba inooma muuqato waana ayaan darradooda ugu waaweyn ayay ka mid tahay waxyaabaha cudurrada laga qaado markaa jeelka wuxuu leeyahay horta jeelka dee jeel mu ahayn kaa Soomaaliya jeel mu ahayn anu jeelal badan baan galo kaa dee Soomaaliya jeel mu ahayn wuxuu ahaa cadaawad ama col buu ahaa col dii kelmadda maaragtay xabsiga laga saaro jeel iyo waxaas jeelku waa iska caadi qofka waa la qaban karaa dambi waa la xidhi karaa xataa adigoon dambi lahayn waa lagu xidhi karaa waayo waa lagu qaldami karaa laakiin waa lagu sii daynaya de haddii ay iska jirto cadaalad kole waa la ogaanaya laakiin maxaaba la ixday ma oran kartid kaasise wuxuu ahaa dee wuxuu dheeraanin cadaawadunbuu dheeraa col buu ahaa ee xabsi mu ahayn marka waxa weeye cuntada matalan xabsiga marka lagu geeyo waxaa lagaa reebayaa de matalan birkimada matalan waxaad darsidatoo dhan macaws iyo shaadh iyo garan kabaha cadayga waa lagaa reebaya matalan saabuunta waa lagaa reebaya wax allaale wax sigaarka kabriidka waa lagaa reebaya haddaba wax la waayo dunidana caday unbaaba ugu daran ka hor markaa jeelka dee wax la qiyaasi karo maaragtay maaha markaad halkaa hadday ku jirto keligaana weyn meeshuna waa madowdahay waana cidla
waxaa laga yaabaa habeenkii iyo maalintii qacantaada inaad midnaba arag midnaba ma arkaysid haddaan la jidin waayo waa guri ku hoos yaal iyo geyd biroo adag iyo weliba gaadhku guudkayga sii jira dabayluhu ma gaadhaan goobtaan ku noolahayba maba soo galaanba xagee ka imaba markaa waxa weeye askartu meeshaas waxay u baahan tahay wax lagaga sheekayn kara microfonkan iyo maaragtay maaha jeelku laakiin waxa weeye berigii marka kugu horraysa ee aad maaragtay tahay wax walba waxay ku fiican yihiin markaanad aqoon berigii hore halkan 1974 ayaa laanta buur horta muddo waxaa cuntaba lagu keeni maayo berri maxaad cuni markaas waxaa ku dilaysaa iyo cabdiqays baa cunto doonayaan la odhanay iska aamusa waxba ma ogidba nin maadaa meel sokabaad ka fekeraysaaba hebel baa kan yaan lagu odhanine xariif isbaaba kugu jira iyo isla weynaan iyo kibir iyo cadcage markaa raggu dhawaaqumaad maqlaysa habeenkii waa dad wada waashay oo kaa soo horreeyey oo ninba meel cidlaa ku jira keligii soo magaraysa oo saraakiil iyo madaxweyneyaal iyo qaar baa meesha waa lagu badan yahay marka waxaaba u wanaagsan ninkan suugaantaaba u wanaagsan oo shaqadiisii baaba haystaa isagumaba rawaxayaba markaa askartu markay yimaada habeenkaaba kugu yaa warniyo adigu waad hadlaysaa une waasaan de anigu shaqadeedii baan haystaa miyo de anigu soo iskama maxaa jira waxbaan idinku sameeyey ma saro codkuuna hoosu dhig codka lama ogole macayade ku odhanaya moogta markaa de waxaagi waad iska wadataa laakiin dee qalin iyo waraaqo iyo waxaasaan jirin taana dee askartaad baa mushtar iskaga qabsanaysaayoo way ku imanayaan oo cabdiqays baa ninkan ahaa magaari ahaa de niyo gabadh baan jeclaayo niyo waxaan doonayay inaan guursade niyo dee gabadhii weydiidee bal hees igu samee hayo qalin iyo warqad iyo soo qaado caawa saqda dhexe de way yar adag tahay bahashu ii keen markaasuu dee keenayaayo iska faa'iidaysanaysaa anigana dee laba waraaqood ii soo raaciyo yaryaro hay gabadhaas markaasuu leeyahay jamaad baa la yidhaha ya jamaad baa la yidhaha marka qandaraas baabad ku hay markaasaa dee odhata markaasaa le jaamac iyo xirsaa dali jamaad iyo firdowsna titirkaad ku qaadi ma waxaad ka jecesho aad ka doorataa jira markaasaa dee u dhiibaysaad leedaho xaligkaan u geeyo aroortii ku kalaa ku iman niyo samsan baa la yidhaha gabadh baan doonayna marka qandaraaska saas kaga jiraysaa dee ninkan naafwaadka waxba cidina ma xidhe de waxa u shaqaynaya de junuudda u shaqaynaysaa junuudila oo qandaraaska qoraysaa adugu meesha kuma xidhide dadkaad ka wastaynaysaa oradar kuwaana u geeraa waxoogaa oradar odayga halkaa oradayga ka tahay dhibaatadaada oo de adu dadkaad kala hadlaysa marna way ku imanaya waxa ku bal noogu dhafee si yarayd noogu dhafaniyo ya mar waabay ooyayaan markay maqla ay dhegaystaan waxay oranayaan mar dambe aan ugu soo qaadan ma inaanu ku dilaa doonaysa mise isdilin masay dhaqaaqayaan oo qiiroonayaan ya marka meeshu waa meel cajiib ma aha meel maalin yaabin kule xasuusay kol shimbiri meel isku ka soo taagtay shimbiraha iyo waxaas waa warka ugu weynoo tukaha iyo shimbiraha iyo waxa iyo quraanjada iyo caarada iyo waxaas ka shaqaynaysa hadda anagu imaka waan wada naqaanaa xataa way saf naqaanaa مثلا وده واحد جالس أنا تقولان شو يقول واحد يدبتاي ويقول تدي واحد جالس صحيح مركز كلي جاون سايد اللي سنة شان سنة قف كلي جون هذا قرآن شدو وده الله يان تام قوي شيء كيسنا يان بقى هذا قرآن شد هذا يا عرب هذا يا حساس كلا شيء كيسنا سايد يقول هذا ويقول يا روتي بديبان ودير لبا ويقول يا هذا سايد يقول يا هذا كرنا لكن ملين مركاين ده وحوي ما نسوا شمبري وحيا شمبري هاي لا ليسا adna layda guudkaad leexaysanaysaa ragna laba dibilaa geed tiir loogu loojoo laguhu ka xidhan yahay sida aad u looshiya liirtaanyadaan qabo laba kala fog weeye lurka weli ma kulantan mise laca u baxya maba daafin laabaa de waayo shimbirti waa iska meesaalkanaysa way kaa duulaysaa waad arkaysaa iyada macno kuma fadhida dibaddeed ma allah macnooy ku fadhida adiguna waad leedataa shimbirtaan marka waxaad leedahay talo shimbirtaa haddaad imaka noqoto maxaa caynka markaasadaasa waxaa ku cuni lahaa maalan kaneecaad noqonaysa waxaad leedahay wallaahi qorataa ku cuni dhab
jeelka waxaad noqotaba mar baad waaysaa wixii aad ku bixi lahayd oo intana sii socoto aan lagu nabadgelinaynba bal hadda ka soo qaado taasina way ku soo maraysaa hadda waad keligaabad fakeraysaa waxaad leedahay diqsibaad noosaad leedahay wallaahi waa duushay dabayl xoog laaba dhacday way kurdishay maytaa iska daa shimbirtanaad noqotay meel baa bahal meeloo bisad baaba kugu meelun baa ku birtay bisad un baa qabsatay maba ka baxaysidba gorgor baad noqonaysaa markaad muddo jeexdaa gabalku ku damay aad meel dhexa marayso waad markaa hadda jeelku waa iska weel waa wax wanaagsan oo kolkol loo xiisooda uu isku fiican yahay mawja السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبرنامجيني aan ugu magac daray sirta ereyga waxaynu ereyga iyo aqoonta iyo xikmadda iyo wax walba isagunbaa lagu gudbiyaa kolka la isku si la isugu xidhxidho halkan waxaa inala fadhiya maxamed ibraahim hadraawi abwaankii weynaa cabdi aadan qays oo isna badankiin taqaaniin xasan cilmi oo isna maanta marti noo ah oo isna abwaan reer Djibouti oo la wada yaqaana abubakar muuse markaa intaanaan malaha u gelin cabdiqays oo sheekada inteeda badan yeelan doona abubakar inta dambena waxaan kusoo dhaweynayaa cabdi on lebel halkaa dameerkii darmaan ninkii la odhan jiray halkaa markay marayso waxay inoogu dambaysay inuu ka sheekeeyey maaragtay sidii wixii maaragtay sababahii loo soo xidhay qaar ka mid marka waxay inoogu dambaysay tixda deeg harrow deeg gowskaaga daangiyo doog ha lagu casuumiyey halkaa igu yaradaa kubtu deegad maahee waa dagal siloono dabraweerar baa yaal shil maahee dulbaa'iga waxba ha u dardaar warin daymadaada baashiya daclada ka soo laab dululaati kaymaha ulashada darbaa jira wax ku soo dugaalee meelaha daasoon iyo laandayrta iga eg duluucdii ku soo noqo yaa dilay wadaadkaa qabiil baa sababtiisa lagu daray waa dabeecaddeenni ma isagaa dekana qabay maya dalxiisow nin dabaal ku jirayoo dunidaba ogeynoo doqoniima jeelkaa la soo doonataa tahay daahir wuu shahiido dabadheer abaartii 10kii la dilay ee diinta aawadeed iyo dar ilaahay dhimatay dabka lagu shiduu galay marka halkaa wuxuu inoogu sheegay wadaadkii uu shaqaynayey reerkii uu shaqaynayey wuxuu ahaa reer nin mujaahida u lahaa oo 10kii wadaadee la dilay 1975 qoys ka mid ayaan u shaqaynayey markaa laftiisa uu sheegayo aniga lafteedu waan xidhnaa wadaadadaana jeelka ayaanu ku wada jiray xamar marka anigu waan soo xusuustay aniguba darmaanow daahir iyo wadaadada dagallada gaboobiyo xabsigaan la degayo gaal shiro docdiisaan daris kula ahaayo dilka ka hor aroortii daldalaada loo waday dacwaddii iyo xadiiskii dikriga ay akhriyayeen dubaaqayga hoosiyo duunkayga kama guyin dul maraya qasiidada haddaan kuu dacaal dhabo waxay tahay darmaanow boqoraan dayoobayn boqoraan dakaamayn boqoraan hurdada dayn oontana dabnaha gelin waxanala midaan dugin wadku aanu dili karin duud lagama soo jarin dihashana kumuu iman isaguna dirmuu dhalin da'diisuna bilow ma leh daraf iyo dhammaad ma leh dayax iyo cadceediyo xidigaha la daawado dusha samada kaa taal ka daleeyo weeyaan noloshiyo dabaylaha isagaa daruuraha iyo roobka soo dira waxay nagu dardaareen dadku waari maayee kol haddaan la daynayn wadkan laga dambaynayn duumiye kaneeca ajashaada duugtee durki mayse taadii dibna looma dhigayee inta dulin ku cunilaa ama ciil ku dililaa ilaahay daraaddii dadyowmaa u dhimataan deeqsigu ha dhowroo daartii fardowsiyo dugsi wacan ha geeye halkaa iigu yara daah mid kalena ku soo duro markaa lafteeda halkaa wuxuu iigu xusuusiyey
halkaa waxaan ku xusuustay aniga laftaydu wadaadada uu sheegayo isku qol baanu ahayn meel agtayda bay ku jireen aroortii la saarayay markaa dee digri bay akhriyeen wallahu akbar bay lahaayeen qasiidana way tirinayeen qasiidadii markaa intaasaan ka xusuustay war bal nimankaasi niman odayaalay ahaayeen waabad xusuusisay alla ha u naxariistee bal haddaba sheekada taa waaban kula garto reerkaas habad mid ka mida u shaqaynaysay anigana tu kalena iga hoobaan dabac iyo hasheennii deegaanka hawdiyo dacallada nugaaleed deex loo xirgayn jiray ama labada daamood daraaddeed colaadaha dabka looga shidi jiray iyo sida dameerkii koluu dumar ku dhaansado daldaloolka hoosiyo danahaaga hanan jiray adhigii daruurtiyo hadba meesha doogale degmo looga dhigi jiray dibigaan ku qodi jiray dalaga iyo beeraha durdurada gammaankii dagaalada ku geli jiray iyo dunyadoo idil dulin iyo qaniin iyo bahal iyo dugaagiyo daratiyo kud mooyee maan lahayn dad baa jira dunyada collaystee ninka dabarka kugu xidhay muxuu kuugu duur xulay war bal arrintaadii waaba yaabbay leedahay war wadaadkiina gartay waxaan lagugu soo xidhay marka lagu qabanayee lagu xidhayey dameeriyo bal ninkan ku qabtay waxaan uu jeeday kiiskan qodobkan uu kugu soo oogay bal ii sheeg weli muu sheegine dee sidii loo soo xidhay iyo sidii loo soo qabtay baanu ii sheegin markaa bal ninkan dabarka kugu xidhay muxuu kugu duur xulay ayaan anugu hadalkii ugu soo jiray wax maan dilin dad maan dhicin maandooriyaashiyo daroogada mid soo gura maan ahayn dalxiisow ganacsade dilaalihi hubka lagu dagaalamo weligay dushayda iyo duudkayga kuma raban dunyadoodu qaar bay tahay dacar qadhaadh iyo deeq lagu khasaaraye ma daldalan sidoodii dadkoo baahan keliday dibiraday eegay duhurkii kumaan odhan baananka dulsaarkiyo halka daynta laga helo dacwadiguma soo qorin nacas baa dareenkiiyo damaciisu lumiyee intaan diday sidiisii dadkaygii ma baabiin dumi iyo kacaan diid midna duunka kuma hayn xukunkooda kama didin dal shisheeye maan tegin bal diiwaanka baadhoo darajiya xilmaan sidin maanta laygu dabagalo halka layga dilay iyo waxa dabinka igu riday dar alle ma garan weli dameer yaaban baa tahay midda kaansan baa tahay dani dhigata baa tahay hagi darmaanow daadihii warkaagoo intaa dooxa joogtiyo daliilkaagii qabashada daacadii igu sheekeen war waxaan nin cajiibaaba tahay sidan lagu soo qabtay de wuxuu yidhi anugu daroogada kama shaqayn jirin oo wuxuu yidhi hubkan yani suuqa madoowe hubka kontrabaanka ah nin guraa